boob ayaa loo geystay gaadiidka safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan. Maleeshiyad hubeysan ayaa bilaqaystay gaadiidkii safaaradda Soomaaliya ee Suudaan sida uu sheegay safiirka Soomaaliya ee dalkaasi Suudaan Ambassador Maxamed Sheekh Isxaaq. safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan Ambassador Maxamed Sheekh Isxaaq ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku yiri waxaan cambaareynaya falkii wuxuushnimada ahaa ee lagu bilaqaystay guriga aan ka deganahay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan. safiirka ayaa sheegay in la qaatay gawaaridii safaaradda Soomaaliyeed. falkaasi waxa uu ku eedeeyay in ay ka dambeeyaan maleeshiyad hubeysan oo uu sheegay in aysan ixtiraamaynin qawaaniinta caalamiga ah iyo xurnimada diblomaasiyiinta caalamka. bishii hore ayay ahayd markii la jabsaday safaaradda Soomaaliya ee magaalada Khartoum iyadoo halkaasi laga qaatay hal gaari oo dad shacab ah ay lahaayeen iyo agab kale. dowladda Soomaaliya ayaa horay dadkeeda ugu daadgureysay dalka Suudaan oo ay dagaalo ahli ah ka socdaan. waxay ciidamada ku dagaalamaya magaalada Khartoum ku dhaleecaysay in ay ku fashilmeen ilaalinta dadka rayidka ah.